waxaa maalintii saddexaad galay bixinta deeqda lacageed ee dowladda dhexe ee dalku ay u soo idmatay guddiga gurmadka qaran ee fatahaadaha islamarkaana uu caawinayo maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo kan degmada Jowhar kana socotay bixinteeda tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle islamarkaana saameynta uu ku yeeshay fatahaadaha webiga Shabeelle. Tuulada Boodal oo kamid ah tuulooyinka fatahaadu ay saameynta ay ku yeelatay ayaa waxaa guddiga gurmadka qaran iyo waliba maamulka gobolka shabeellada dhexe ay gaarsiiyeen deeqda lacageed ee loo soo idmaday. Gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa si isku mid ah tilmaamay in dadku ay saameyntu ay ku yeesheen biyaha webiga Shabeelle aysan ku filneen deeqda lacageed ee soo gaartay. waa u mahadcelinaa dawladda dhexe tuuladan aad arkaysiin dadkeeda waxaan gali waayay tuuladii go'doon ay tahay darteeda banaankan sidaasaan ugu qaybinoynaa halkii qoysna waxaa soo gaartay lacag $50 ah waxaan ku dardaarmaa ka gudoomiye ahaan in beeraha xooga saartiin wax soo saarka xooga saartiin marka aad iyo aad ayaan maartay uga mahadcelinaa intii la soo baxdayna Ilaahay waxaan leenahay ajir badan ha ka siiyo dawladana waxaan ka rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo intaana waa intii bilowga ahayd hawsha si fiican ay uga socotaa shabeellaha dhaxay qaybtii loogu talagalay degmooyinka balcad iyo mahadayna waa darhad waatan ku wareejinay ayagana hawshay wadaan. Maxamed Cumar Ciimo oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya isla markaana ahaa horkacaya guddigani ayaa tilmaamay in maamulka gobolka iyo guddiga gurmadka fatahaadaha Hirshabeelle ay sidii loogu talagalay ay u bixiyeen lacagaha loo soo idmaday. Anoo ku hadlay magaca guddiga qaranka ee fatahaada tani waa hordhac sidii horeba u ballan qaaday dawladda dhexe waxay jeceshahay kuna dadaalaysaa in ummadeeda meel kasta ay joogto ee ay dhibaatada tanbiyaha fatahaada ay gaarsiiyeen in alla intii karaamkooda ah in ay gaarsiiyaan wax alla wixii awoodooda ay u qaban karaan. Cabdi Ahmed Maclow, Cabdi Zaki, Bulsha TV, Jowhar.